In ka badan sanad kadib markii Soomaaliya ay si rasmi ah ugu biirtay ururka Bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, waxa wali muuqday inay ku adag tahay sidii uga faa'iideysan lahayd xubinnimada ururkaasi. Kala daadsanaanta dawladda iyo caqabadaha siyaasadeed ee gudaha ah ayaa la sheegay inay hortaagan yihiin kumilanka dalka ee xubinnimada EAC, taasoo sababtay in shacabka Soomaaliyeed aysan wali helin faa'iidooyinkii laga filayay xubinnimadaasi. inkastoo Soomaaliya ay bixisay khidmad dhan 3.5 milyan markii ay ku biireysay ururka, haddana dadka haysta baasaboorka Soomaaliyeed ayaa wali wajahaya caqabado adag oo dhanka socdaalka. Sidoo kale, dawladda Soomaaliya ayaa ilaa hadda ku guuldareysatay inay buuxiso jagooyin muhiim ah oo siyaasadeed iyo maamul oo kaga bannaana hay'adaha EAC. Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga mid noqotay urur ka kooban 7 dal oo la isku yiraahdo East Africa Community taariikhdu markay ahayd 4 Maarso sanadkii 2024, taasoo ahayd gunaanadka dadaal socday muddo 15 sano ah iyadoo lagu guuleystay kadib sanado badan oo dalka uu wajahayay caqabado dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ah. Dalalka Soomaaliya ay ku dooneysay inay ku biirto ururka EAC ayaa si weyn waxa hormuud ugu ahaa maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dawladda Soomaaliya ayaa ku dooday in sababta ugu weyn ay ahayd in dalka uu la jaan qaado horumarka dalalka gobolka ee dhanka ganacsiga, isku socodka bulshada iyo iskaashiga dhaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidooyinka la taaban kara ee laga filayay ku biirista ururka ayaa wali si muuqato loo arag shacabka Soomaaliyeed oo ay kamid ah waxa ugu badan ee safarka ku taga gobolka ayaa filayay inay helaan fududeyn dhanka socdaalka ah, laakiin waxa wali ay la kulmayaan dhibaatooyin badan oo dhanka socdaalka sida inaysan wali helin fiiso la'aan ay ku galaan dalka Kenya oo ah adeeg ay inta badan dalalka Afrika helaan marka laga reebo Soomaaliya iyo Liibiya oo kaliya. Arrintan ayaa culays dhaqaale iyo mid bulsho ku ah shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Marka laga tago caqabadaha socdaalka, Soomaaliya ayaa sidoo kale ku guuldareysatay inay si firfircoon uga qayb qaadato qaab dhismeedka siyaasadeed iyo maamulka ee East Africa Community. Ururka EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa leh baarlamaan East Africa Legislative Assembly, gole fulineed iyo sidoo kale maxkamad sare, taasoo xarunteedu tahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Soomaaliya oo ah xubin rasmi ah ayaa xaq u leh inay u dirto 9 xubnood oo matala baarlamaanka, sidoo kalena waxay xaq u leedahay inay hesho mid ka mid ah 8 xil ee ugu sarreeya maamulka ururka sida xoghayaha guud ama gudoomiyaha baarlamaanka. Baaritaan madax bannaan oo la sameeyay ayaa muujinaya in Soomaaliya si aan la fahmi karin dib ugu dhigtay buuxinta jagooyinkan muhiimka ah. Dib u dhacan ayaa la sheegay inuu ka yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxtooyada oo ku guuldareysatay inay waqtiga habboonaa u gudbiso baarlamaanka liiska xubnaha loo soo xulay inay matalaan Soomaaliya. Habraaca caadiga ah ayaa ahaa inuu jiro tartan daahfuran oo musharaxiin badan ku tartamayaan kuraastaasi, kadibna baarlamaanka Soomaaliya oo si rasmi ah u ansixiyo liiska musharaxiinta. Hase yeeshee, maamulka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegay inuu diray liis xiran oo lagu saleeyay nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 isagoo si toos ah loogu gudbiyay xoghaynta East Africa Community iyadoo la raaciyay nidaamyadii lagu heshiiyay ururka. Liiskan ayaa isla markiiba laga soo celiyay dawladda Soomaaliya, wuxuuna muddo sanad ka badan ku xayirnaa gudaha dawladda iyadoo xaalad siyaasadeed hadda jirta ay adkeynayso inuu baarlamaanka ansixiyo liiskaasi. Dib u dhaca Soomaaliya ku yimid inay si buuxda uga dhex milanto ururka ayaa inta badan lagu eedeeyay kala daadsanaanta iyo hofnaan la'aanta ka jirta gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Arrintan ayaa xanibtay fursado muhiim ah oo siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho oo Soomaaliya ka heli lahayd xubinnimada ururka EAC. Dawladda Soomaaliya ayaa ilaa hadda bixinin wax faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan sababta ay u suurtageli weyday inay si buuxda uga faa'iideysato xubinnimada EAC xilli ay dadaal badan gelisay sidii ay ku noqon lahayd xubin buuxda, isla markaana ay bixisay lacagihii loo baahnaa. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa wali rajaynaya inay dawladoodu dib u xaqiijiso ujeedooyinka asalka ah ee Soomaaliya looga biirayay ururka si ay dadka Soomaaliyeed ugu dambeyn u helaan xuquuq la mid ah tan muwaadiniinta kale ee dalalka ku midoobay EAC. Ururka bulshada Bariga Afrika ee EAC ayaa ujeedadiisu tahay inuu sii xoojiyo isdhexgalka dhaqaale, midka siyaasadeed iyo mid bulsho iyo dhaqan ahaan ee dalalka xubnaha ka ah ururkan si loo hagaajiyo tayada nolosha shacabka gobolka iyadoo loo marayo kobcinta ganacsiga, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Soomaaliya
ayaa ka soo kabanaysa colaado muddo dheer soo jiitamay waxay muhiim gaar ah u leedahay inay si firfircoon uga faa'iideysato fursadaha dhaqaale iyo siyaasadeed ururka uu bixin karo si kastaba ha ahaatee sida hadda muuqata waxaa jira farqi weyn oo u dhaxeeya himilada Soomaaliya ka lahayd xubinnimada iyo rabitaanka siyaasadeed ee looga baahan yahay si loo hirgeliyo faa'iidooyinkaasi Xamdaashi Axmed RTN Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadalaya IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha